halkan maanta aynu joognaa waa degmada Laalays ma sha Allah waxaan maanta ka shaqeynay ragga aad arkaysaan waa dadkii deegaanka waxaan ka shaqeynay wadadan oo aad u muhiim ah oo baabuurta caanaha iyo kuwa kale ee gaadiidkii hibaay maraan oo dhagaxaanta culus aad arkaysaan raggaasi waxa ay ka shaqeynayeen waxa mashruucan maanta la yiraahdaa self help waxa afka galada loo yaqaan laakiin af Soomaaligana la yiraahdo wuxuu qabso qof walba iyo deegaan kastaba iskiin wuxuu qabsan karo ee ka tarjumaysa tabaha horumarka iyo abaabulka iyo guusha waxa keeni kara dadka deegaanka oo iskood wuxuu qabsadaa annaguna hadalkaas uma kula dhaxdhacnay inaan wax qabsan karno ayaan muujinay nimanka aad arkaysaan maanta waxa ka shaqeynayeen wadada baabuurtu ay marto kareedka ku noqotay imika baa xildhibaano ay leeyihiin way jirtaa rag baa dooran oo jooga wadanka laakiin haddana mid ku soo noqdo ma laha waa caqabad iyo mushkilad taala dalkeena xildhibaankii waa la dooranaya dib ugu soo noqdo deegaankii laga doortay annagu waxa aanu taasi ku muujinaynaa waa taasoo wax way qabsan karaan waxaan hore u ogaa oo maanta arkay in wax la qabsan karo waxaan hore u ogaa oo maanta arkay inaanu jirin xildhibaan ku soo noqdo dadkii doortay ya waxaanu garwaaqsanay in aanu iska dhex tagno dhexdooda ka abaabulo masharfada qaataan sabarada dubayaasha deegaan kasta oo saasi Soomaaliland kamidina waa la mid gidi waa isku wada nooc hore loo ma mahadin nimankii la doortay maanta ilaahay idinkii waxaanu rajaynaynaa haddii aanu ku soo baxno aniga xildhibaankaasi golayaasha aanu sharaxanahay ee dadka deegaankuna codkooda ay noogu taageeri doonaan inaanan ka marnaan sidaas u dhex taagnay marka waanu dhex taaganahay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa idinkaa wax qabsaday idinkaanu idin nimid idinkaa sabradaha qaatay idinkaa ammaanta leh laakiin kolka xildhibaankiina idinla joogo ee idin abaabulo ee wax idinka qabto de waad aragtaan in sabrada la soo baxay taalka intii nagu hadhina aynu ku banayna meeshin doono tuuladan mushkiladaha haysta oo kaliya ma aha wadadan biyo la'aan baahsan baa ka jirta oo barkaduhu way ka maran yihiin maanta halkan aynu joognaa waa deegaanka Laalayska ee galbeedka Hargeysa waxa u dhaxaysa dhinacan Arabsiya ka xigta dhinacna Dhaboolqa ka xigta dhinacna Abaarsa ka xigta waa deegaan la ilaaway ama aan nidaam maamul inta badan aanu ka hirgelin shantii sano u dambeysay ka Maxamuud ahaan aanu deegaanka waan ku tacalluqay ama waan la xiriirayay biyadaan iyo duruufo kale oo kala duwan baa runtii ka taagnaa deegaankan dhammaan adeegyadii bulshada way ka aradan yihiin waxaan u baahan yahay runtii wax badan wax laga qabto aniga xildhibaan musharax maxamed cali cabdi maanta waxaan halkan u nimid baahidii ugu weyneed deegaankan taalay oo ah runtii wadadan oo isku xidha deegaamo fara badan ilaa ya allay baday halka ka tagta ilaa ya xagana korka Soomaaliland ka tagta xuduudka dheer taxan oo baabuurtu ay dhibaato fara badan runtii kala kulmi jirtay oo buurtaasi wax uga qabtay ay weeday baa runtii aanu u nimid maanta waa isku tashanay dadka deegaanka markaanu baahidii eegnay waxaan isla qaadanay horta wadadan in aanu ku horeysiino xoogayga iyo muruqayga iyo maalkayga baan isugu geeyno oo maanta sidaa arkaysa wax badan aanu ka qabanay sidoo kale biyadaan baan deegaamadan hore uga sameynay oo maanta alxamdulillah intii weelay haysteen biyaan ugu shubnay haseeshe baahidoodu intaa way ka balaaran tahay iskuul ma haystaan Dhaboolqa ugu dhow ama Carayaan baa ugu dhow caruurtoodu waxay dhigtaan ma haystaan caafimaadna Hargeysa ugu dhow beerihii wayda ka arkaya waxa ka qaaday markuu roobku dooxyo waaweyn waxa ka dilaacay runtii deegaankan baabiyay oo dadkii beerihii ay ka qodan kar lahayn marka dhammaan wadadii way ka maqan tahay beerihii way ka dayacayiin xoolahoodii wax u xanaanaya ama u caafimaadiya ma haystaan marka waxaanu ku tashanay sidii aan maanta dhowdo maraaga uga soo qodnay dhaamkii ay u baahnaayeen dadka deegaankaasi in aanu dhammaan deegaamada la naga soo dooranayo gobolka Maroodijeex oo deegaamadeedu kow ka yihiin runtii aanu tacabkayga gelino aqoontayada gelino bulshada dhiiri gelino oo aan isku keenno waxaan ugu baaqayaa dadka deegaankana runtii
in iyagu ay awoodooda muujiyaan sida ay maanta u muujiyeen marar hore oo kalena sidaan hawlo noocan oo kale uga wada shaqeynay inay laba sii kordhiyaan marka la arko runtii inay wax qabsanayaan ay isku tashanayaan baa dadka kale iyo anagu iyo ciddii kale maanta deegaanka ka soo jeeday qurbaha joogta oo runtii dadkii deegaanka ka tagay qurbaha aad ugu badan yihiin dad hanti haysta way dad aqoon haysta way inay deegaankooda iyana ku soo noqdaan oo beerihii ay ka tageen iyo xoolihii ay ka tageen ay wax soo taraan baa runtii loo baahan yahay aad iyo aad baad umahadsantihiin wax wada qabsi waa aad iskaashi baa wax lagu gaadha horumar waxa keenoo keliya cidda deegaanka ku nool iyo ciddii gacan qabataaba markay iskaashadaan anagu ka musharaxiin ahaan xisbiga wadani wuxuu maanta hiiliyo hooba la garab taagay dadka deegaankan in haddii duuftan imika ku jiray mucaaradada uu yahayna tuso cid allaala ciddii baahidooda wax ka qabanaysa xilka markaan ku guulaysanayna haddii la yiraahdo inaan wax badan ka qaban doono deegaankan iyagana aanu ka baryayna runtii ama aanu ka codsanayno inay codkooga noogu hiiliyaan si aan wax ugu qabanno oo dadkii hore doorteen maadaama ku soo noqon waayeen annagu aanu ballan qaadnay iminka ka horreyn wax qabanno marka ayna doortaanna haddii la yiraahdo inaanu si joogto ah ugu xidhnaan doono baahidooda wax ka qaban doono aad iyo aad baad u mahadsantihiin anigu waxaa la yidhaa maxamuud yuusuf waxaana nahay odayaashan deegaankan laalayska markaa labadaa musharax ilaahay raalliha ka ahaadee sidaa ay sheegeen waa run abaar baa lagu dhacday beeruhu way naga been biyo la'aani way jirtaa laba kor labada musharax noo soo shubeen ilaahay waxaan u baryaynaa in ilaahay guuleeyo weli waa kow nin musharaxa iyo nin la doortay oo deegaanka ka soo baxay oo la dhex yimaada labada musharax horteed waanu u mahadnaqaynaa marka xagga caafimaadka waanu ka liidanaa kala hore aniga waxay qabsatay haweeney fureysan halkan ka qaaday hargeysaan ku weyn oromada markaan maraya ay halkaasi ku dhashay caafimaadkana saasaan ku nahay xanaanada xoolahana weli waxaa xanaanada xoolaha la sheegaya weli maanaan arag halkaa noogu yimaado waxaanu nahay xoolo dhaqata beeraley weli wax noo yimid oo halkaa xoolaha caafimaadinaya maanaan arag caasimadda hargeysana waxaanu u jiraa ilaa 20 kilomitir meelaha marka sidaasaan horta u liidana wixii maanta haddii aan la yidhaa amba qurbaha ku maqnaadeen amba caasimadaba ha joogaan deegaanka u dhashayna labadaa musharax horteed maanaan arag waxna dhex yimaada waxaan leeyahay hadda oon dowladda ka codsanaynaa baahida iyadaa gaarkeenu sheeganay inay wax ka qabato ilaahay saasaan u baryaynaa waxaa aniga la yidhaah baan ku aniga buxuul aadan daahir jaamac baa la yidhaah waxa weeye waxaan ku noolahay degmada faraweyne degma ahaan somalilan kolka la yidhaah 30 sano dad badan baa ka soo baxay ilaa heer madaxweyne ilaa heer golo degaan mid aanaan ka dooranin ma jirto waxa weeyaan mid noo yimaada ama wax nala qabta ama baahidayada eega waa wax la waayba waxa weeyaan cabdilaahi cashuur wuxuu ku maamaahay waxa weeyaan xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta markii uu dhakada ka fuushanaa wuxuu yidhi baan ku malaha dhagaxan fuulkii xilkuu kaga falaagaa markuu uu fadala cadcad yahay markuu maxay sidaa foodka soo galee malaha dhagaxan fuulkii xilkuu kaga falaagaa yaa xilka dee waxa weeyaan 30 sano doorashadu way socotuun suulkayga waanu dhigaynay tu madaxweyne tu baarlaman tu golo degaan wax daneeyo maanaan arago qorrabkaasaanu ku noolahay baahidana ilaahay baa saara wax bilaadan oo loo cawdaa waxay qabtaan ma jirto allahan horta gacmaha wasaysaa kuna noolay waxa weeyaan ilaa tii hore ee faqashta wax alla wax laga arkay guumaysi mooyaane ma jirto tanina nabadgelyaday ku dhaantaa xagga hantida iyo wax isla qabadka kuma dhaantee waxaanu leenahay xildhibaanada maanta loo yidhi horta way mahadsayiin waa dadna soo dhayda ninba maalin u baan u dhashaa haddii ay dhashaan
dee haddaanay sidii kuwii hore anigu waxaan ku dhexbaasha gelin waxa weeye nimankaana daneeye een maanta danta guud wax nagala qabanayo weeyaan waxa weeyaan waxaanu leenahay idinkuna maraa waaxid waad mahadsantihiin maanta arrimaha aad nagu soo booqateen aad garabka nagu siiseen sidaana waanu idinku garab taaganahay xisbigaatiina waa xisbiga waddani la yidhaaho waxa weeyaan haddaad sidaa noo danaysaan anagu wixii dantayada guud wax ka qabanaya un baanu codkayaga siinayna ya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa weeyaan anoo ku hadlaya magaca iyo qof ka mida shakhsi macnaha ku nool tuuladan ama degmadan laalayska oo ka tirsan degmada Faraweyne gobol ahaan Maroodi Jeex waxa halkan aad arkaysaan in macnaha mashruuc saacid nafsaka ah oo ay ujeedkiisana ka dambeeyeen labada musharax ee codka doonaya maxamuud xuuto oo ah shakhsi awal aan ahaa oo xagga saxaafadda la wada garanayo iyo inanka kale la sharaxan maxamed cali injineer maxamed cali waxa weeyaan horta maxamuud baan anu in badan aqoon u lahaa waxa weeyaan shakhsi firfircoon oo wax qabad leh oo meel walba ka muuqdo runtii ah waxna weeyaan qofka horta de wax doonaya waxa weeyaan sideedaba wax doonaya inuu ku yimaado wax ku weydiisto ayaana waajib ah marka waxana weeyaan xisbiga ka sharaxan yihiin ee wadani waanu soo dhaweynaynaa qof macnaha indhaha dadka u kala qaaday oo inay wax qabsadaan tusiyay wixii ay la garab taageen ay ku caawinayna soo bandhigay barnaamijkooda way soo bandhigeen nimankan waana cad yahay marka bahweynta beesha buraaqa ee ay ka sharaxan yihiin iyo inta kale deegaanka ku nool ee meeshan joogtaba aad baan u danaynaynaa waana soo dhaweynaa markastana waanu garab taaganahay marka waxaan doonaynaa ka hadlo hal qodob oo ah macnaha nimanka xisbiga kale ka sharaxan in macnaha xisbigan wadani ay ka sharaxan yihiin deegaan ahaan looga dhigo sidii wax weeyaan xisbi ahaan xisbi qaran oo macnaha wax weeyaan xisbigan de kama jiro xisbi qaran oo Soomaaliya ama xamar laga leeyahay maaha waa xisbi qaran oo Jamhuuriyadda Soomaaliland aynu ognahay oo ah saddexdii xisbi ee soo baxay wax weeyaan Soomaaliland way gobol kasta in loo sinaado oo xagga sinaasho aad ugu hadlan doonaya marka dadka masaakiinta ayana aad wax u fahmeyn ee deegaanka ku nool ayaa waxa jirta in macnaha marka ciidamada kale ee ka hadlayo inay si kale wax u gelinayaan oo leeyihiin kaasa xamara iyo kana maxay weyn inagu wada iyo xisbiga ka sharaxan yihiin baa khaldan yaan waxa weeyaan cidii danteena wada iyo cidii marka faa'iidadu inoogu jirto yaa la inaga maran habaabinin aynu danteena garanno intii indhahaynoo ahayda kale wax weeyaan waa la wada arkayaa waynu aragnaa annaga idin hubna halkaasay dantu inoogu jirtaa xisbiga wadaniga inamada ka sharaxan inaynu taageerno oo cidda wax nala qabanaysa ee wax weeyaan ina dhex socota ee kula joogto gooriya ayaan waxa weeyaan sida muuqaalka saxdaana wax inoo weydiisatay inaan codkeena halkaas isla wada ogaanayno seeno mashruucooda iyo sida wax u qabanayaan oo sii socon doonta insha Allah kariimna waan soo dhaweyn doonaa gooriya ayaan hadii Ilaahay yiraahdo marka waxa weeyaan sida aynu isku wada ogaano assalaamu calaykum labada xildhibaan maxamuud cabdi jaamac iyo maxamed calawi cabdi ee maanta halkan ugu yimid way mahadsan yihiin deegaanka laalays dadkoogii oo maanta xoog isku kaashiya halkan isugu yimid wadadii halbowlaha hayda halkan ee daruuriga iyo biyaha iyo dhaanka iyo gaadiidka kacaanaha iyo ka cagafta ka beeraha qodayabaha u soo marayeen oo buurta iyo dhagxanta waaweyn saaranahay naga gooyeen baabuurta ka naga jabsay cagafta ka naga jabsay awrka halka naga dhacay oo maanta iskaashi xoog isku yimid u sameeynay oo iyaguna inay soo garab istaageen horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waayo gacmo wada jir bay wax ku wada qabtaan wixii la qabto maanta duu shakhsi kaliya tan ka yimaado waxa soo dhagax mu saareen 20 keena inta ka badan maanta isbedel waxa soo dhagax ku saaray marka horta dadka waxaan u sheegayaa wixii iswada qabsi ee la qabsada inay yani sidaas yihiin wax la dhaqaajin karo oo hadii maanta buurta loo dhaqaaqo karo hadii banaanka loo dhaqaaqo karo wax laga dhigi karo marka anigoon hadalka aad u badinayn haddana baahiyaha gaarka ee deegaankana xagga biyaha waanu ka biyalaanahay xagga beeruhu way naga ba'een xagga caafimaadka waa ka liidanaa waxbarashadii xagii kale xitaa beerihii wax beeristii xitaa imka qofka khudrad beera amba geed weyn beera waayo qofku hadii aanu aqoon aan u lahayn waxba kama garan karo xaggaana baahiyaha gaarka hay'adaha caalamiga iyo dadweynaha iyo waxaan doonaynaa in xaggaasina wax naga qabtaan annaguna labada musharax maxamuud cabdi jaamac iyo maxamed calawi cabdi way mahadsan yihiin aad iyo aad u mahadsan yihiin waanu garab taaganahay hiili hobo la garab taaganahay xisbiga wadani ay ka sharaxan yihiin iyo iyagaba waanu garab taaganahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh